الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ فارح waxaa mar dhow iga dalbaday inaan kelimo idhaahdo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu waafajiyo idinkuna aada intifaacdaan oo nacfi iyo khayr ka soo gaaro, anigana nacfi iyo wanaag iyo aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala ugu siiyo. Waxaan jeclaystay inaan tilmaamo alxadiid oo culamada ay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay axaadiista asalka oo ah waqf alislaami. waqfka islaamiga marka laga hadlayo oo shareecada ay ka hadlayso, axaadiista asalka oo ayuu ka mid yahay. xadiidkaas wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba. waxaa warinaya cabdullah bn cumar bn khataab. cabdullah bn cumar khataab waxa uu leeyahay asaaba cumaru ardan bikhaybar. aabahay cumar ah wuxuu helay dhul iyo khaybar ka helay, qayb kusoo cadday ah. khaybar waa magaalo madiinat almunawara u jirto 153 kilomitr dhanka sham marka loo socdo. sanadkii 7 ee hijriga ayayna arrintaasi dhacday. asxaabu rasuulillaahi markii hantii xoolo ay helaan iyo salafkiiba waxay ku fikiri jireen xoolahoodaasi rabbi uu siiyey si ay uga faa'iidaysan lahaayeen oo aakhiradooda ay u geysan lahaayeen wax ka mid ah oo wanaag ay ugu gaari lahaayeen. waxa uu leeyahay cabdullah bn cumar faataa cumaru annabiya sala allahu alayhi wasalam yasta'miruhu fiiha. aabahay cumar bn khataaba rasuulullahi sal allahu alay wasalam ayuu u yimid oo nabiga ayuu u yimid asagoo kala tashanhayo xoolahaasi wixii uu ku samayn lahaa. waxa cumar bn khataab uu yidhi yaa rasuul allah, asabtu ardan bikhaybar. dhul ayaan ka helay khaybar oo qaybtaydii ah. lam usib maalan qatu huwa anfasu cindii minhu. weligayna xoolahaasi xoolo ka fiican ma helin oo kuwii igu wanaagsanaa oo igu qiimo badnaa oona helo weeya. famaa ta'murunii bihi ya rasuul allah. rasuulka allah maxaad i amraysaa xoolaha alla subxaana wa tacaala way siiyey oo aada u qiimo badan oo wanaagsan oo wax ka fiicanna weligay aan helin, maxaad igugu talinaysaa? taladaasee weeye, maxaa sameeyaa? rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu yidhaahday in shi'ta xabasta aslaha wa tasaddaqta biha. haddii aad doonto asalkan xoolahan xabsi waqf ayaad ka dhigaysaa. xabsiga waxaa waa joojinaysaa in qof kale uu milkiyo ayaa laga joojinayaa oo laga xirayaa. wixii ka soo baxana sadaqo ayay noqonayaan. cabdullah bn cumar wuxuu yidhi fatasadaqa biha cumaru. cumar arrintii ayuu qaatay wuuna sadaqaystay. annahu laa yubaacu walaa yubtaacu walaa yuurahu walaa yuuhabu. wuxuuna ku sadaqaystay oo shuruuda ooga dhigay oo sadaqadaasi ay ku salaysnayd in xoolahaasi aan la iibin karaynin, aana la soo iibsan karaynin, aan la dhexli karaynin, aanan la hibayn karaynin. haddii xoolaha mar waqaf ay noqdaan oo shayga arkaanta uu ku fadhiyo waqfiga waxaa la yidhaahdaa waa 4 rugni. waa in la helo qof waaqif ah, wax waqfay ama muxbis baa la yidhaahdaa kutubta qaarkood ay ku tilmaamhayaan. in la helo mawquuf ama muxbas, wax la waqfayna waa inuu meeshii yaallo. waa inuu jiro mawquufun calayhi, dad xoolahaasi lagu waqfay, ama muxbasun lahu, dad arrintaasi loo xabsiga loo xidhay waa in la helo. sidoo kale siiqat lwaqfi, arrinta afraadna ee rugniga kalena 4 rukni marka la helo shuruud bay leedahay, mawaanic buu leeyahay. shuruud iyo mawaanicdana la helo shayga waqaf ayuu noqonayaa. ma banaana shaygaasi laa yubaacu walaa yubtaacu walaa yuurahu walaa yuuhabu. riwaayadaha qaarkood laa yubaacu walaa yuurahu walaa yuuhabu marfuuc ayay ka dhigayaanoo nabi sal allahu alay wasalam hadal laga soo naqliyey oo uu yidhi ayay riwaayadaha qaarkood tilmaamahayaan. riwaayadan haddaan tilmaamahayana laakiin waxay ka mid tahay hadalkii cumar bn khataab. cumar xoolahaasi wuu waqfay, waqf ayuu ka dhigay. wuxuu odhanayaa cabdullah bn cumar khataab fatasadaqa cumaru fi lfuqaraa'i wa fi lqurba
وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف. لح نوع أيو ku waqfay xoolahaasi hala siiyo wixii ka soo baxo beertaasi waxaa la siinaya dadka fuqarada, waxaa kaloo la siinaya dadka qaraabada ayaa ka qaadan karahayo, waxaa kaloo u waqfay fi riqaab haddii luqun ama qoor la xoreynhayo, qof la xoreynayo u jiro hadduu wax uga baahdo in lagu xoreeyo. wa fi sabiilillah ilaahay daraadii in arrin igu waqfay waxyaalo fara badan ay soo gelayaan oo jihaadka uu ka mid yahay. وبني السبيل dadka musaafirka oo safar ku jiro ayagana wax laga siiyo, والضيف dadka martida in wax laga siiyo. dhixda nooc ayuu ku sadaqaystay xoolihi. waxa Umar radiyallahu anhu ornaya la junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghayra mutamawwil fihi. لا جناح على من وليها قفك مسؤولك وقفك وحدا بعدوشي سماها أن يأكل منها بالمعروف سوى ناقنوح وعنا أو يطعم صديقا أما سحيبك وصواب وغدا أما سحيبك وحكسيه وحكعنا غير متمول فيه أصوانا كحو ليسانين وكما ليسانين وبزنسي تجارة كدي جنين لما أقرأ هل هو قريها وكليه شيء وقفك إنه أحكي قاعدته بالمعروف وناقو كلية إنه الحوا قاعدته. أيها الإخوة وإن نفتنا أمبره هنا أوقاف سمعينه وبرشدني ومديننا أرنتها سي معناها يأدو وبرارو سنين مساجد الحب باهيهن أوقاف لو سمعيه أوقاف إلا سمعيه ودتك مساكين أوقاف لو سمعيه دتك قرابة إن أوقاف لو سمعيه أوقاف تحسوق لين بيرو معناها وقف لو سمعيه وصدق جارية لغيرته إن عيل أو كلنتو ما ليسوا وقف لغديو إن مسجد أو ليستو وقفات كديكتو أوقاف تخيرجا إنه قد دالوه شروط بيليهن أحكام بيليهن صيغة إلى هاي نادر الوقف وقف يدك المسؤولين تكا أي لفت هذا شروط أي الله هيا مركوينا قد دالو سيدي عن صدقة جارية أنا سمعين لهين أو وقفت إكملتها هاي كلمة سيئة على استي إن إلى هذا إلهنا سبحانه وتعالى حول سنة إنه هو أنفعه يمكن أن يكون أنفعه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.